war-saxaafadeed ka soo baxay ciidanka militariga dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in awood ciidaneed oo isku dhafan kana kooban ciidanka aan xuduud lahayn ee dalkaas iyo xulafadiisa Afrika ee bisha February ee foodani ku saaysan dowladda militari ka sameyn doonaan magaalada xeebeedka Berbera si kor loogu qaado bay dhaahdeen wada shaqeynta caalamiga iyo la dagaalanka dambiyada iyo hawlgallada ka dhanka ah argagixisada. Dowladda militari ayaa sidoo kale wuxuu ka dhici doonaa Botswana, Djibouti, Kenya, Rwanda, Uganda iyo waliba dowlado kale oo Soomaaliya qayb ka tahay. Militariga Mareykanka ayaa iyagu si joogto ah u sahamiya meelo istiraatiijiyad oo ku habboon tababaradooda iyo diyaarintooda awoodooda ciidamadeed ee ku wajahan hadii xaalad degdeg ah soo food saarto.